بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هبون داوديال كسو دوادا qodobada nuxurkooda kuwa ugu doorka roon waxaana ka mid ah daawo uu sameeyay madaxweynaha wadanka Madagascar ayaa laga digay taasi oo la xiriirta caabuqan coronavirus. madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga qadka taleefanka ayay ku wada hadleen waxa ayna ka xaajoonayaan arrinkan dunida sida aadka ah saameynta ugu haya ee coronavirus. magaalada Muqdisho bandowgii saarnaa ayaa si aad ah loo xoojiyay iyadoo oo markaasi la soo hormariyay waqtiga. dowladda Kenya waxay si aad ah ugu raad joogtaa dad ka baxsaday xarun lagu karantiilayay oo ay ku sugnaayeen. qodobadaas ayaa daawan doontaan haddii ay baraali u ka ahaado. dadka reer Kenya oo muuqaalo laga duubay iyaga oo ka firxanaya xarun lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay inay qabaan cudurka coronavirus ayaa la soo qaban doonaa dibna loogu celin doonaa halkoodii sida uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta. waan idin garanaynaa waan idin soo heli doonaa ayuu yiri, wuxuuna intaa ku daray in dadka xaruntaasi ka baxsaday ay khatar geliyeen shacabka intiisa kale. digniin ka soo baxday dowladda ayaa timid kadib markii la shaaciyay muuqaal laga duubay dhowr qof oo darbi ka boodaya si ay uga baxsadaan xarun karantiil oo ku taala magaalada caasimadda ee Nairobi. dadka ku jira xarumaha karantiilka ee qasabka ah ayaa ka cabanaya nolol xumo iyagoo sheegay inay ku jiraan wax la mid ah xabsi qarash badanna ay halkaasi uga baxayo. waxay sheegeen in goobahooda qaar ay nadaafadooda aad u liidato, kala fogaanshiyaha dadkan aysan suuragal ahayn maadaama tiro badan oo hal meel la isugu geeyay ay yihiin. kuwa kale ayaa ka carooday in goobaha lagu hayo looga qaado lacag u dhaxaysa 20 ilaa $100 taasi oo ku xiran hadba xarunta la geeyo. in ka badan 400 oo qof ayaa ku karantiilan Kenya waxaa ka mid ah dadka dib ugu soo laabtay dalalka cudurka saameynta ba'an ku yeeshay kuwaasi oo dalka soo galay kor inta aan xuduudaha la xirin. lama oga tirada rasmiga ah ee dadka baxsaday isla markaana ku sugnaa xarumaha karantiilka ha yeeshee 50 ruux ayay kor u dhaafayaan. baxsashada ayaa dhacday maalintii Talaadada ahayd xilli cunto loo qaybinayay dadka. wargeyska Daily Nation ayaa Twitterka ku shaaciyay muuqaal lagu arkayo dad darbiga ka boodaya isla markaana ka baxsanaya xarumahaasi karantiil. Kenya ayaa tan iyo markii uu cudurka soo gaaray dadaalo lagu xakameynayo maalin kastana waxaa sii kordhaya tirada rasmiga ah ee cudurkan uu soo ridanayo. dhinaca kale dowladda Kenya ayaa magaalooyinka xeeraada gelitaanka iyo bixitaanka lagu soo rogay ku dartay Mandera oo ah magaalo ku taala gobolka Waqooyi Bari oo ay Soomaali badan degan yihiin. wasiirka arrimaha dibadda iyo amniga qaranka Kenya Matangi ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay amar cusub oo lagu ballaarinayo xakameynta cudurkan coronavirus. tirada ugu badan ee uu soo ritay cudurkan coronavirus ee dalka Kenya ayaa la sheegay in ay yihiin dad da'adoodu ay aad u hooseyso. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in aanay jirin daawo la xaqiijiyay in lagu dabiibi karo cudurka COVID-19 kadib markii uu madaxweynaha Madagascar soo bandhigay daawo dhireed uu sheegay inay ku fiyoobaanayaan dadka qaba cudurka viruska corona. macadka daawooyinka qaran ee dalkaasi ayaa sidoo kale shaki geliyay waxtarka daawada uu soo bandhigay madaxweyne Andrea. agaasimaha madaxtooyada Madagascar Love Hazinrina ayaa BBC u sheegtay in ku dhawaad 20 qof muddo 3 toddobaad ah lagu tijaabiyay daawadan. madaxweynaha ayaa sheegay in 2 qof ay si buuxda ugu daawobeen sharoobada uu ku tilmaamay shaaxdhireed. waa in caruurta ardayda ah ay cabaan xig yar ay maalintiiba ka cabaan ayuu madaxweynuhu u sheegay diblomaasiyiin iyo madax kale oo ka soo qayb galay bandhigga daawadan. jasiiradda Madagascar oo dhacda badweynta Hindiya ayaa diiwaan gelisay 121 kiis oo COVID-19 ah taasi oo walwal badan ku beertay dadka halkaasi ku nool. hay-adda WHO oo ka jawaabaysa daawada Madagascar ayaa sheegtay in aanay ku talin jirin in la qaato taawooyin aan la hubin si looga hortago caabuqan dunida saameeyay. WHO ayaa tilmaamtay hadal uu hore u jeediyay ninka madaxda ka ah Tedros Adhanom kaasi oo ahaa in dadaal badan oo caalami ah ay u baahan tahay baaritaanka arrinkan. waxa WHO ay sheegtay in daawadan aan lagu degdegi karin isla markaana ayna hadda habboonayn in la soo bandhigo.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo qadka taleefanka ay ku wada xiriireen dhigiisa dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ka wada hadlay hanaanka iskaashi labada dal. waxaa sidoo kale ay ka hadleen xakameynta iyo ka hortagga cudurka covid-19 oo aafo caalami ah. farmaajo ayaa kala hadlay erdogan sidii looga caawin lahaa soomaaliya ka hortagga cudurkan covid-19. madaxweyne farmaajo ayaa uga mahad celiyay shacabka iyo dowladda turkiga taageerada joogtada oo ay la garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda soomaaliya gaar ahaan xilligan ay daran tahay xaaladda caafimaad ee dalka. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya cabdi xasan xijaar ayaa ku dhawaaqay tillaabooyin cusub oo ku saabsan bandowga saaran muqdisho. waxa uu sheegay si looga hortago in cudurka coronavirus uu kusii faafo dalka in lasoo hormariyay bandowga xilliga habeenkii ay saaran caasimadda. bismillaahi raxmaani raxiim. habeen wanaagsan. sida loola wada socdo waxaa 12kii bishan ku dhawaaqnay in 15 abriil magaalada caasimadda ah ee muqdisho lagu soo rogi doono bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 aroornimo. tallaabadaas oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo faafidda xanuunka khatarta ah ee coronavirus. haddaba waxaan doonaynaa inaannu mar labaad ku wargelinno shacabka soomaaliyeed inuu dhaqangalka bandowgaas uu bilaaban doono caawa 8 fiidnimo haddii ilaahay idmo. sidaa daraaddeed waxaannu muwaadiniinta sharafta leh ka codsanaynaa inay u hoggaansamaan. ciidamada amniga waxaa la farayaa inay ka howlgalaan dhaqangelinta bandowgaas iyagoo hubinaya inuu si buuxda loogu hoggaansamay. bandowgani sidaan horeyba u sheegnay waxa uu saameyn doonaa dhammaan ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo goobaha lagu iibiyo raashinka qalalan iyo xarumaha caafimaadka sida cisbitaallada iyo farmashiyeyaasha. sidoo kale bandowgani ma saameyn doono saxaafadda oo howlo muhiim ah oo wargelin iyo wacyigelin isugu jira u haya bulshada soomaaliyeed. waxaana la farayaa booliisku inay saxafiyiinta u fududeeyaan howlahooda. waxay kaloo ku caawini doonaan dadka xanuunsan ee cisbitaalka u socda sidii ay u gaari lahaayeen goobaha caafimaad si ay u helaan daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.